ورنا على شيدان كويا وايد السلامي يا نمان بلا رقبة بلا كشكية هل سود وهذا وانكي شينا عليها وعلى سعوتان إلى الشلي وركب برها بالشلو كجرا وعلى سعوتان انتي سفر معها قولي أنا بتكتو بان سلها وعلى يري ورور كدميا باي ورور كدميو باي يا ورور كدميو باي horta waxa la yiri ninkii banaankiisa mara yaa oodima qabsata la yiri annaga bila isku doonanay dadaana wada marin isku profession ahayn isla ekayn yaa annaga ayeeyoyin annaga dariiq la maray waxa rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed ka shaafiyo waxa ku aragteen baraha bulshada video la soo dhigay iyo war ilaa shalay sida loo waday oo sheegaya gabarhan UK la yiraahdo oo fanaanad sheegata fanaanada ya fanaaniinta dawaagi dama dadku laba heesoodo midna in cawaale aadan la qaaday midna iskaraaji la qaaday ba heesow ah waxa weeye defanku hadda waa iska sheegtaa hani UK la dhawaanu hadda wixii ka dambeeya hani Hungary baa bixiya hani Hungary ya oo videogeeda la wadwado oo la leeyahay xaflad bay dhacday baa lacag baa laga dhacay reer Germany baa dhacay arrintaas rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan ka shaafiyo gabadhan UK la yiraahdo waxaanu ku kulannay waa isdadaan isnaqaano oo macaariif aan ahayn daanu ma moodayn anigu de saatan ma moodayne gabadhaas waa isnaqaanay muddaan isnaqaanay tiraba laba jeer baanu saragnay dad oogada iska yaqaanaanu ahayn maalin dhawaytaanu Paris isku aragnay xaflad Puntland leedahay nala ku wada casumay ilaahay waa igu og yahay haddii warinta igu murqaantay bay waayaheeda iga sheekaysay duruufo balaayo markaasay waxay tiri warniyaho xaflad Jarmalka igu qabo waliba waxba igu taagtaagane bisha tobnaadii qabo warow anu waxaan id xaflada ma qabto kowde waa ka cudur daartay gabadha waxa igu dareed markay igu tiri wari waa daymaysanahay oo ninba intuu balan ila galo jacayl la jilay Canada jooga bisha Augustaan aroos wada galayna intuu yiri baa waxaan dayniyo deeqadi karay qaaday bay tiri saas igu tirinta burqaantay marka wuu igu balan furay waa daymaysanahay tafaha lay haystaa Germany xaflada igu qabo waxaan walaalay hadii duruuftaas ku hayso anu xaflada ma qabto laakiin waxaan gobol Soomaali degan tahayna ma joogo waxaan ku doonayaa cid xaflad ku qabataan doonaya wiil odaya qolo jaaliyada urur haysta oo xafladii nimcaan hilaac aan ku arkay iyagoo wax wadwada oo dad sharaf leh oo aan qaano baan la hadlay waxaan ku yiri war gabadha Soomaaliyeed baa arrin halka rabta inay timaado xaflad ku qabsato walaalayaal anna ma qabto cid kalena garan maye wajigayga ugu qabta wiilashu waxay yiraahdeen waa u qabanayna waa isku xiray waa isbaray ka bacdi anu Jarmal baan ku soo noqday iyana Ingiriis baan ku soo noqotay waa wada hadleen wiilashii waxa la wada hadlo way heshiiyeen anu lama joogo waxay ku heshiiyeen waxay dhaheen haniye anagu xaflada ma qabano baramuutaramanihin waxa yeelaysaa hool baan ku soo kireynaynaa halkaas aan xaflad kugu qabanaynaa halka wixii kaaga soo baxa wixii kharash inta iska goyso wixii kale abaay adu iska qaado waayahay beet hool baa loo soo kireeyay waa loo soo dhajiyay markii muddadii soo dhaweyd ya bay ila soo hadasho waxay tiri shiino tigir ma haysto tigid ma haysto halkaas uu ku jira waxaan igi abaayo anaa tigid ku goynaya waa igu soo celisay waxay tiri gabar bay la socota walaalow waa tigidii noo goy labadayadaba waayahay baan de amba dadaan israqaanahay dadku waxba ay siiyaa ku abaalka sheegan ma yaxaasha wujuud hadee iyada abaal dhacday halkaas uu ku jira waxay ii soo dirtay magacii gabadha markaan dabay tigidkii inaan gooyo bay waxay tiri waxaan idin sheegayaa warakan waa war kooban berri wixii loo gaaro iyadoo xalqada gabadhaasi dhibaatada geysatay baa insha Allah ta'ala aan soo tabinaya halka waa warko kooban baa rabaa inaan idin siiyo markaan dabay tigidkii inaan u jaro oo ay tiri jimcaha imanaya axadda baagiga dhig wara waxaan id aanu de maxaa baagaaga dhakada iga saaray goobaan gabarna waa kula socotaaye hay aasine googaasaan walaal ku goynaya dawa iska garanaysa fanaanad ajar laga helmayo Soomaali barkeeda gaajo haysa marka googaasaan ku goynaya waxa yeesha walaalo kaalay xafladaada markay ku qabsoonto wixii ilaahalka ka siiya anagu ilay kulama nihine baaga ka gooso hadii ay wax weydo oo maxaa ku raahdaa meesha ku cadirato cid ku iman weydo
oo kalsooni darro ku haysana walaalo anaa ku nooleeya haddaba annaga ku keenay waxay tiri intay iga daabay tiri iga daa waxba hay jarin niman beel hadashay waxay tiri dad kala la hadlaya anaa tigid goosanaya way suka xanaajisay de waxaan lacag bay baaqatay waa thank you baan awalba da xaqiiqo ma lahayn ajarayga way walaal baadiyada kayri warashilkayga baaqda thank you shamci kadib bay ila soo hadashay markay gidaar walba isku qaaday oo cid tigid u goyso weyday oo xataa wiilasha xafladda u qabanaya inta la hadashay yiri wara annaga hanugu balaaran hool baan ku soo kireynay hudheela degaysaan deebaaji ka dhigeena gaari baan ku soo kireynayna annagu maxaa ka faa'iideena adaan wax ku qabanayna walaalay soo tag iyadoo la yiri kharash baan dadka u galay bay igu soo noqotay baqayl yarsir maratayn tigidkii oo maraya markaa maalintii 70 baa diiday 150 isagoo maraya yaa baan ku khasbanaaday inaan jiro oo tiri walaalow googa kaliya ii jar marakan naama maalintii joogo itiraado ii jar waxaan isir mar hadii hadalka tagay aan dhufaa tabta dib looma laqay 150 baa ugu jiray gabadhii adiga waa timi anigu xafladeeda kuma jirin waxuma qabanayn dadkaas aan isku xiray way bariday walaalow leefka i gali airport kan ku soo dhaweeyay walaalo leef i gali dadku ha ogaado leefkaan u galiyay danahaygan ka raacday dib uma arag xafladeeda ma istaagin oo ma tagin wiil ila socday oo xafladda tagay anu dana kale madaxweyne ku xigeen yimi oo amuura kale ku mashquulsanaa wiil ila socday oo xafladda joogay ba waxaan dama xafladda inaan ka soo qaado waxaan idin ogeysiinayaa warakan ma dhamayn karo hani hotelkii la dajiyay xataa waa jijabis waxaan ku yiri fiidiyowyada iyagoo badan cadeymi baan hayaa wax walba iyadoo fiidiyow ah oo qoraal ah oo muuqaal ah oo ilaahu aadan beerka beenina itu soo itaabsiya berri wixii ka dameeya ba halkaas kala soconaysa wiilkii baan dabcay inaan soo qaado markaas aan istaagay gabadhii xafladii markii loo qabtay oo xafladii la bilaabayo bay soo wacday iyadoo caytamaysa oo leh aniga lacagtayda gabar bay qabanaysa halkaas ku jirta aniga lacagtayda ina culayo gabar bay qabanaysa wiilashii ay la hadal siisayna waxaan ku ballanay in xafladda qof qabto baan ku ballanay meeday la sii qaado waxay soo duubtay meeday annaga badgalnay war annaga badgalnay wata balageysta ninkan aad fu'aad kala leeyahay aniga asaga dhiilaan naga dhaxeeyay ma fahamtay in qof aan keeno isaguna qof keensada hadda wuxuu ku leeyahay jinabi baan keenay maanta dhan buu shiino walaalo meeshan ceebba ka soo socota diinta ilaahow iga saar balaaya ka dhacaysa ilaahow diinta nabi maxamed iga saar ninkan haduuna hadda saacadan la joogo waxa aniga aan rabaa lagu shaqeynaa dii kale fuck everything up waxay leedahay wiilkii aan baray bay iga dacwoonaysaa waxay leedahay waxaan ku heshiinay inaan anna qof keensado isna uu qof keensado oo lacagta sidaa lagu guro haddii kale anu waa wiilkii baan la hadlay anu shaqo kuma lihi waxa tiri dhiilka naga dhaxay waa ka wiilkii ay u soo xirtay wiilka faal la leeyahay saasa dhiilka igu ahaa wiilkii baan la hadlay war walaalo waa mashquulsanahay danahayga iga badane gabadha hadaa saa ku heshiiseen yeel midda kale waxaan maxaa ku jaban gabadha hadaa cid keensato wixii bay kula ogaanaysaa intee bere ku tuhmi lahayd yaa yeel arinta wiilkii waa yeelay gabaray Norway kala timi oo Maariya la dhaho baa iridda u fariisatay gabadhii baa lacagta u gurtay Maariya la dhaha promoter weeye gabadha markii hore galaala ay arinteeda uga hadleena ka bacdi gabadhii markay iridda u fariisatay wiilashiina waxa weeye gabadhu lacagta guraysaa wiilashuna warqad bay ku qorayaan hebel baa galay 30 euro 5 qof oo wada socdo 30 maxaan ku lahaa 20 kan 5 ka qaad xafladii wiilashii xisaabtii bay qorayaan gabadhiina lacagtii shandad bay halka ku haystaa oo ku guraysaa gabadhu waa gabadhii hana u fadhiday 2800 iyo inta iyo wax dheer markay maraysay ba xafladii istaagtay wiilashii waxay yiraahdeen war lacagta aan tirino gabarey marka isku dudno aan lacagta aan isku dudno waardiya iyo kharash baa inoo yaalee aan waardiya kan wax ka siino hani waxay tirahay soo amarto bay gabadhii tiri hani hadii aysan soo amrin ma lacagta furimayo bet hani baa loo tagay hani gabadhii fariin bay u soo fartay wiilal uluma oo jiriya oo biyo kul saac ugu shubaya bay u soo dirtay yaa ulum saa ula socda annaga bala aragnay markaas gabadhii baa waxa lagu yiri lacagta la carar baa lagu yiri la carar gabadhii hareeraha iska egtay waa hoolka markaan soo istaagayo wiilka ka qaadayo xafladu gabagaba tahay gabadhii hareeraha saa isaga eegaysaanimi warshiina haye Maariya la dhaha lacagtaan guraya halkaan isku baranay wiilashii cabanaya walaalow lacagtii gabadha haysa shiino bilaa noo keentay waa diidayna isla tarino waxaan iri tuug hadaa tahay guntu xumadaada mararka qaarkood inaad tuugtahay la moodaay walaalayaal suga baa iri
iska suga hani haynii timaado lacagta ha aragto 2800 baa inii soo xirtay Soomaha waxa laga yaabaa hani inay islaad 5,000 baa helaysaa marka alxamdulillah weeye intaynu tuumi lahayd gabadhii hani waxa tiri lacagta la cararo waxa geysaa guriga hebel ah gaari baa halka ku istaagana la gal gabadhii suuliga intay gashay baa la yiri oo hareeraha isla egtay taw lacagtii isla dhigtay wiilashiiba xaggeega mise gabadhii ma joogto lacagtii ma joogto hani baa la isku shubay hani markii loo sheego la yiri lacagtii waa lagu la cararay bayna banaanka ku soo dhacday dadkii ay u heeseysay ma ixtiraamin banaanka ku soo booday wiilashiiba kalarka qabsaday anu ma joogo wiilashiiba kalarka qabsaday inay dhacaysaa arkay waxa la yiri haniyay hoolka kama baxdid mana dhaqaaqdid waa ina lacagtii keentid oo aynu xisaabtano oo hoolka kiradiisa iska bixiso oo muusikada iska bixiso oo meesha cunaysa iska bixiso oo hotelka deganada iska bixiso nala xisaabtan fiidiyowga la wareejinayo facebooka waa markii wiilashu kalarka haysteen oo lahaayeen naajog dhig lacagtii halka keen weeye khaladka fiidiyowga loo fahmay oo la moodo in iyada la dhacay wiilashii baa kalarka haysto ma bixaysid baa la leeyahay keen aakhirkii wiilashu way isku xisheedeeno iyaduna waa tuugo ka indhaa gaari bay ku dhacday gabadhii waa soo wacday cod bay soo duubtay halkaas ku jirtaa badbaa ay gelisay balaa ay gelisay anoo meel iska jooga waa wacay taleefankii bay igu damisay waa qayla iska keen waa la hadlay wiilashii bay soo wacay warinaagti waana dhacday hotelkii ay deganayd bay tagtay labadii boorso u taale hore ka qaatay magaaladiiba waa ka baxday wiilashii ooyayaan u tagay wari badbaada gelisay iyadii baa wacay way igu damisay cod baa u duubay war haniyay walaalo wara saaba kala budid wara wiilasha lacagteeda keen wakaaday soo arkaysan waxa cod isu diray soo arkaysan halkaas lagu duubay eega wara keen wara lacagta bal eega horta ana ku baray wiilka ana xaflad in meesha la igu qabtaan raba anu ma qabtaan ku yiri ana cid iskiin baraya hadii wixii wax ka soo noqdeen waxa weeye cidda wiilashii hadda haystaan waa aniga adiga waxa ka hadlaysaa meesha ma yaaliine lacagtii meesha ka soo xirotay baa inta gabar ridda farisay baa lacagtii la tagteen oo lacagtii la dhacdeen kiradii hoolka la tagtay alaabtii muusikada lagu kireeyaa la tagtay hotelkii lagu kireeyaa la tagtay waxa oo dhan waa kiiska iska waal baanan u arkaa lacagtii xoogaagii meesha ka soo xirooday isleedahay yaan lagaaga daba iman walaalo hadii aad qof wanaag raba tahay wiilashii ana ila joogan anaana ku baraye hadii kaale xisaabtan oo xisaabax oo wixii meesha ka soo xirooday la kaalay wixii kharash ana walaalo iska bixi hadii aad tahay qof waxa dhacayna hadda qof waxa dhacaya tahay waxa ku leenahay haniyay dad sharaf leh baa ahayd sharaftaada ilaasho sharafkeenu kala mudnayn dadkii ehelka ahaa oo markaa tigidhka weeday ku soo cabaadayso tigidhka ku soo goyniyay oo emailka ku jiro baasaboor lambarkaaga ee magaca u soo direysay baan anigu ahay marka walaal waxaan la kala mudnayn dadka la isma dhaho marka waxaan ku leeyahay walaalo sharaftaada shilin hasiisan baan ku leeyahay kaalay xisaabax ehelkaagii baa wadankooda jooga dadka la hadal kaalay xisaabax maxaa lacagta xoogaaga oo la cararaysaa 2,000 miyaa kula weynaaday meesha ka soo xortay sida la sheegayso kaale xisaabax hoolkii kiradii lacagtiisii baa lagu leeyahay tii muusiga lagu leeyahay hotelkii baa lagu leeyahay ma dadka rabtaa inaad ku jirto waxaasi waa sharaf darro waa jirinimo weeye marka waxaan ku leeyahay samcadaada iyo sharaftaada uma fiicnee walaal ka joog baan ku leeyahay shiina culayo tuug dhalay oo baaster ah oo nacala aabihi ku yaala tahay aniga iyo adigana lacag baad ka hadlaysaaye Soomaali Maxamed baa ina kala saaraysa tigid baa shidan ku jaray war tuug baa tahay oo khiyaanaala tahay oo garac baa tahay ana hadda ku sheegay fucking baaster yaho Facebook live hadaanan madaxaaga u soo gelin Soomaali Maxamed wixii xafladda joogayna wixii xalay dhac marxaatibay ka ahaayeen wixii waxa sameeyay aduha adeer macaan naag shilin sharafteeda eeg lacagtii bay la caraday waa kiiska iska waal warakaale xisaab baxbaaridi waxay ku leedahay yuu kula hadlin ilaa isagii baa loo dacwanayaa wiilasha anaa baray ma ogtahay yuu kula hadlin baloog bay soo saartay ehelkeedii baan shalay doonay aniga wiilasha xaqiguma lahayn waa ka carari karay waa ka dhaqaaqi karay meelay ku heshiyeen ma ogeyn waa isbaray kaliya iyagaa doqoniina sameeyey oo aaminay oo gabar yiri iridda noo fariiso oo iyagaa lacagta u dhibay aniga shaqadeeda ma ahayn laakiin waxa la yiri jinninkii keena waa saara waxa ii cuntami weeday
wiilashii oo hoteelkii lagu gooyey oo hoolkii lagu gooyey oo muusikada qalabkeedii lagu gooyey oo security-gii lagu gooyey oo gaarigii renti kaarka ahaa ee gabadha u soo qaadeen lagu gooyey inaan cidla kaga dhaqaaqo bay cuntadii ma weeday ehelkeedii baan doonay habayarteed baan la hadlay waxaan idhi war dadku waxaa ma kala mudna war meeshatan ceeb baa taalla war wiilashata war iyo ishaaraa jirta war gabadhii wixii meesha ka soo baxday gabar maariya la dhehe iridda fadhiisatay war wiilal masaakiina heshay dad kale ma gaadeen oo gaadday war wiilasha anaa baray war samcadda ha iga dilinina wari hani 2800 wari sideeda iga heli lahayd war sideeda iga heli lahayd keena lacagtii war wax soo celiya hawsha waxaan ku talagalay gacmo geel jira hoos baa loo dhaqaa inaan hawsha xalliyo waxba habayarteeda la hadalay waxaan dhahnay waxbaan isu geegeynay wiilashii waxaan dhahay intaa ka taga intaana anaa bixinaya intaana ka keena gabadhii baan ku habayarteed waxa tiri soo istaagtay 300 baan bixinaya 300 baan bixinaya war hoteelka ay deganayd baa 280 euro saddexda habeen loogu qabtay waxa iiga daran wax walba 500 oo euro maya istaghfirullah 300 oo euro oo dibaaji ah baa hoteelka la sii dhigay si hoteelka markaa ka guurto baa lacagtaas qofkii ay u celisaa baa loo celiyaa 281 baa wiilashii maxaa ku raadayay ay ka bixiyeen 300 oo euro oo dibaajina waa la dhigay hoteelkii laba habeen markay deganeed habeenkii xafladda lacagta markay dhacday bay boorsooyinkeeda intay qaatay magaaladiiba guure kaga baxday subaxii annagoo yaaban baa waxaan dhahnay war waxba dhaamaane bal hoteelkii tagoo 300 oo dibaajiga ha soo qaada hudee wiilashii baa iga degay gaarigooda ku haray waa ii yeeray kaale baa la yirshiina soo gal reception-kii baa tegey reception-kii markaa tegey nimankii waxay yidhaahdeen gabadhii hoteelkii waa jabisay dibaaji bixin mayno ilaa hoteelka la hagaajiyo si ay u jabisay qolkii baan tagnay mise intay khamri ku cabtay ma khamri miyaade dhala maaha laba maaha gabadha baaldiyaa saa loo dhinac wadaa baaldiyo saa u daraysa oo ku murqaantay oo garaabo labada daamba ku cuntay oo 20 jiriya keentay oo sariirtii ma la isku garaacay ma 10 qof baa seexday ma garanayo baa sariirtii la kala jabiyay markaasaa suuliga bahalkii lagu fariisan jiray baa la soo fujiyay fiidiyogeedii baan hayaa waa soo duubay waxyaaba aan bilaabi doono soo bandhigi doono kam tahay habayarteed baan kaamirada u furnay oo hoteelkii la hadal siinay oo waxaan dhahnay habayar bal eeg waa la tusay oo hoteelkii baa la tusay suuligii oo jaban bal gaalo wax laga jabiyaa ka baxaya waa ogtay waxoodu waa mage adiga alxaasil gabadha waxoodu waa kiiskawaal qof miyir qabtaanu moodeynay anigu qaad waa ku ogaa Soomaali qaad iskuma dayriso laakiin yaa inay biyo kulsa isugu shubto yaa iskuma ogeyn أن الخمر والميسر أدانا وقالها والله وحكم الدرسدين فنان ما بلاقي مقل كره هذا وحي كدمية ما بلاقي مقل كره ما بلاقي مقل كره وحي كدمية ورالك عسين صوتك سطي وأنا تيجي أصحان وجرني مرك عسين وحي الربط هذا إني إسكرنا في شيناء الجرمال ودن مقعد شو أترى هذا ولا يدعي أترى هذا قبض العقد أورسي أو قبنا يسمى ماريا لها كاس الجرماني بهذا الجوكتا نروي بكتمي غرال بيلتهاي iyadoo video wal haya iyadoo codaal haya qiraal beelatay lacagta ana hani u qabanayay wixii meesha ka soo baxay waa qaaday hani iyadoo kaliya ay timi oo wiilashi ka soo dhuumatay fartaan ka saaray waxay saasa u tirsatay ya wixii dhalay ku cabaysan xagga dhigtay wixii kale halka ku shubatay inna tigid beesisatay magaalo kale oo hoyta halkaas ka baxday gabadhaasi dhibtaas noo geysatay Soomaaliyeey oday Soomaaliyeed waa dhacayahay wiilashi shalay waxaan idin warheed wari dib waa la arkaa shalo dhan baa samirsiinayay 100 euro u horeeyay oo qaaraanka aan bixiyay lacagtii 1500 oo euro bu kharashkii noqday marka laga reebo oo aan wali lagu darin hudheelka ay jabisay marka laga reebo oo gaaladii tiri booliis ba xataa yimi marka hudheelka la hagaajiyo baanu qiimaheeda ogaanayna hadii $300 ay noqotana euro ay noqotana waa alxamdulillah daalac leeyni raacimayo hadday ka badatana daalac baa leeyni ka rabaa hadii ay ka yar noqoto 100 euro noqotana 200 waa la siinaya 1500 euro boqolkii ugu horeeyay baan diibay boqolkii ugu horeeyay waxa ay boqolkii ugu horeeyay Soomaaliyeey daamishtaad kaalay odayaashii boqolkii ugu horeeyay waa diibay jinnikii keenaa saara gabadha saama moodayn khamri kuma ogeyn waali kuma ogeyn tuugnimo kuma ogeyn fanaanad baanu haysanay waynu ku dhacday raali ka ahaada boqolkii ugu horeeyay waa ka 1400 kale rag baa layni ka dhigay la dabaasha doona qaaraankii ilaa hadda waa la gurayaa ilaa hadda daamishtaad baa laga gurayaa haniyuuke waxaan u sheegayaa marka waxaan halka uga sheegayaa waxa ila tahay
fanka awalba karaamo kuma joogin heesana kuma joogin waxa ku joogtay heeska iskalaaji kula qaado iyo tan cawaale aad kula qaado hees aan ka ahayn oo ay leedahay ku hay halkan ku hay meesha la rabo ku hay heestaas laga xus karaa wax kale oo ay ku joogtay ma leh marka maanday fanka waxay la tahay qof ka tagtay waa taawal bix kula tagine laakiin adeer ina anaga nugu gabagabaysan ma ahayn ilaahay balantiina waxa ka qaadaya cod kasta iyo video kasta ilaa hotelka ina nugu kaadaa damacday laakiin waxa ilowday inaanu badnahay bad laguma kaadsho haddii lagu kaadsana waxa lama yeelo bad inaan nahay baa ilowday waxaan kuu sheegayaa wixii aabiisay berri iyadoo musalsala baa la iga sugayaa Soomaaliya musalsal berri baa u horeynaysa berri video hooya dadkii oo qaylinaya hotelkii ay jajabisay dhalooyinkii kaga tagtay yaa ma fahanteen maxaa ku raadayay adduunkiisa u baabiisay bankiyadayadii lacagta laga gurto tigrada aan uga jarnay codadkii wixii oo dhan iyadoo inta cabtay carabka moodasta carab la ina cadayo oo yada waxa ka tameeyay waa ka reeyay waa ku dacayay war 2800 anaga waxba nooma aha waxa laga rabay waxa ahayd dhowrkii €100 kharashka inaad iska bixisay ninkii ee tiri Canada jooga oo guur buu iga baxay habeenkii waa ka calool xumaaday waxaan habar qabay gabadha muxuu u lugooyay waa u garaabay waa nin dhowr dhalo lagu dul furtay ilay marka berri iga suga wixii loo gaaro iyadoo xalqa ah musalsal ah oo tagana wax video lagu soo koobi kara maaha waxa lagu soo koobi kara maaha gabadhaasi waana gabagabaysay magac xumay nooga tagtay dalkii Jarmal la oran jiray oo dhan waa la dhacay bay gabadhii lacagta u gureysay oo u urursay daame kaasal bay joogtaa Maariya la dhahaa halkaas baa taleefankeedu ku jira qiraal bay la tahay inay iyadu u qabatay oo u qaaday wixii halka ka soo galayba haddayna oran lahayd war 2800 ka bidan baa filay hadday wiilasha inta u tagto oran lahayd kharashka 1500 iga kala daaya walaalayaalow shan baan bixinaya 2300 la qaadanaya hadday oran lahayd oo aniga la yeeri lahaa oday baan ahay inta dhimankan buuxiyo waxaan oran lahaa gabadha meel fog bay ka soo safartay laakiin fool xumada war anigii wiilasha baray war anigii aan waxba u qabanayn war anigii asxaanka wax ugu xayeysiinayay war qoftii markay nooliga weyday UK tigidka ugu diray ilaa ma soo lugaysana bay bulus xaar xataa ay qaadatay wareede war fanaaniintu masaasay wadayin war anaga fadgalay wala xafladda mutaagna waa la iga maqaliyo bille marka waxa weeye gabadha fool xuma si sheer gareeya wixii beenta ah si reer Germany loo ogaado si sheer gareeya عدين بالحياة عدين وفيديو بالحياة بالهوتيل بالقف هوتيل ما هبان جوجيو سريرتينا كلا جبيي بحالكي لغو فريسانا ينسوا بحيي ورهانية هدام إنجليز كتكتي يا وحيلتهي وحا يسكو شوي سكاب بحي ورولالي بالمركة أمريكا يقصوا نقطو ورا بالصو هذا أنغو يا ابني ما عندي مركة هذا ريال ساسا إنو بلنا بريوحي لو قاروبا يقور سويسان gabadhaasi waana gabagabaysay nagama xishoon annagu markaan nidi gacmo geel jiro hoos baa loo dhaqaa oo lacagtii qaaraankii aan ku taliyay hala qaaraamo oo boqolkii ugu horeeyay dhigay oo meeshii ka soo dhaqaaqay bay adduunkii meel walba Facebook iyo YouTube waxa la galiyay han UK baa la dhacay haye han UK baa la dhacay bay meel kasta gelisay waa naagti dadka dhacday weeye waa naagti dadka iyadu dhacday weeye see loo dhacay ma dad anagu gabar sharaf baan leeyahay شرف الدال لها ميلها كما هستين شرفت على كاقادي مدحنا مفرتين معاكو ناسها انا ركبان قدين هدا شرف لها بان كوري شرف علي انا معروف علي دها غبر با تahay inta ka badan ko oran mayo laakiin berri wixii loo gaaro baa inoo balana berri Soomaaliya YouTube kaga waa taqaanaan iga warsuga waa taqaanaa Facebook kaga waa haysan iga warsuga berri wax walba iyadoo cadayna wax walba odayaashii aan u geeyay wiilashii odayaashii magaalada xataa hadlaya balaayaan heshay Soomaaliya lacagta nala soo bixiyo iyagu 1400 ma qaadi karno boqolkii ugu horeeyay aan ugu siiyay saasa noo balana saasa waxa la yiri dirta qaar aan la cunin baa jira dirta qaar aan la cunin baa jira ya dad kale ina abaayo dad kale masaakiina ina raasatay ahayd dad kale masaakiina ina raasatay ahayd saasa ay noo balana waana idin salaamay waa musharax shilin ku rabo inuu ku dhaafaya hani Hungary iska ogaada hani Hungary iska UK ma hani Hungary iska ogaada hani Hungary iska ogaada wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh